maanta salaadii jimcaha shacab badan oo kamida kuwa ku dhaqan magaalada Hargeysa kula tukaday masaajidka Rusheeye oo ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo 10:00 subaxnimo ka soo baxay qasriga madaxtooyada waxa madaxweynaha wehelinayay xubno kooban oo kamida xukuumadda Soomaaliland waxaanay gaareen masaajidkaasi oo ay ku sugan yihiin boqolaal kamida shacabka ku dhaqan guud ahaanba magaalada Hargeysa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhameystay khudbadii salaada jimcaha isla markaasina kula tukaday shacabka salaadii jimcaha isla masaajidkaasi ayaa kadib Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir oo kamida culimada waaweyn ee Soomaaliland isla markaasina ah imaamka masaajidkan ayaa halkaasi ka duceeyay isagoo sheegay in salaadan maanta ee jimcahana uu la tukaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ugana mahadnaqay sida dhiiranaanta leh ee uu shacabkiisa ula tukaday una soo dhexgalay. تقبل الله منا ومنكم وما تدعي لنا الله دورا قرار انت كلام الله دورا استخراج وانا هنسيه في شعب الكريم قال الوداع وافضل شغل احسن تكون عليها وكل يوم حبيبك قريب ضمير ان شاء الله تعالوا نحضر يعني مره بينا مره دي النادي بين عليه وصف السلام عليكم. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu ka soo baxay masaajidka oo ay kumanaankum kamida shacabkaasi ay madaxweynaha soo barbar galeen ayaa jidka weyn ee isku xidha qasriga madaxtooyada iyo masaajidkaasi dadweynihii kala gadisanaa ee ku sugnaa kuwii masaajidka ku tukaday iyo qaybaha kale ee maqlay dareenka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ku sugan yahay goobtaasi waxay si weyn sacab ugu soo dhaweeyeen madaxweynaha iyaga oo ammaan badan ugu soo jeediyay kuna tilmaamay inuu yahay madaxweynihii ugu horeeyay ee qarankan soo mara ee salaadaha jimcaha kula tukada dadweynaha magaalada Hargeysa masaajidada cibaadada waxaana Ilaahay uga bariyeen madaxweynaha iyo guud ahaanba qarankan in Ilaahay gaarsiiyo horumar iyo nabadgelyo taam ah oo ay ku helaan ictiraaf munaasabada sanad guurada 23aad. وما صدقي shacabkan kala gadisan ee ku sugnaa masaajidka Rusheeye iyo agagaarkiisa ayaa qaar kamida dareenkooda iyo hadaladooda waxa kamid ahaa maanta oo mahmaalin jimcada in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo uu shacabkiisa iyo dadweynihiisa kala soo qayb galay salaada jimcaha oo masjid Rusheeye kala soo qayb galay maanta aad iyo aad buu mahadsan yahay madaxweynuhu. magacaygu waa Nuuraddiin Ibraahim oo Cabdi salaadii jimcaha maanta waxaan ku tukanay magaalada Hargeysa caasimadda masaajidka Rusheeye ilaahay ka jisaysiiyay isagoo uu nutukiyay Sheekh Maxamed Umar Dirir waxaan ugu tukaday madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo ku caan ah mudooyinka dambe inuu noqdo madaxweynaha kaliya qaranka soo maray ee masaajidda ku tukada calimataan baa ugu dambeeyay kana ku xigay waxa la kaliya aan bulshada u gudbinaya ama aan jeclaaday inaan uga hadlo TV-ga qaranka oo aad iyo aad isagana ugu mahad celinayo in la fuliyo khudbadii sheekh ay ahayd in 18 May aan hees iyo durbaan aanaynu qaadane aynu noqono kuwa maxay heetolay ilaahay u xamdinaqa oo duceeya oo ictiraaf ku duceeya. Cabdiqani Gulay Cabdilaahi waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dadkiisa la tukanaya maantana nugu yimid masaajidkaygii sheekh weynaha ka tukanaya Sheekh Dirin khudbad fiican oo noo jeediyay Soomaaliland waxaan leeyahay jirto ha joogto cadawgeeduna ha jabo. waxaan hambalyanayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo noqday madaxweynihii qaranka ee ugu horeeyay ee ummadda kala qayb gala salaadaha. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxaan ku hambalyeeyaa sida fiican ee uu dhaqanka uga dhigtay inuu salaadaha jimcaha iyo ciidaha uu kula soo tukado shacbigiisa. waxaan leeyahay madaxweyne sida kuwa annagu haddaan shacbigaaga nahayna waan kugu jecelnahay. maanta waxaa masaajidkan ugu soo tukaday madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo aad baan ugu mahadnaqaynaa si shacabkiisa uga soo qayb galay munaasabada jimcaha. waxaan xaggan ugu mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ah madaxweynaha shacabka kala qayb gala shacabka salaadaha waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha sida uu hirgeliyay waxqabadyadiisii. waxaan halkan aad u soo dhaweynayaa ka qaybgalkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo
ee uu kula tukaday dadweynaha caasimadda Hargeysa masaajidka Adiina ama Rusheeye aad iyo aad ayaan u hambalyeeynaa madaxweynaha ku tukashada uu salaada ku soo tukanayo dadkiisa iyo dadweynihiisa kula iidayo goobaha cibaadada iyo masaajidada. madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa tanayay intii uu qabtay xilka madaxnimo ee dalkan maaha markii ugu horeysay ee uu sidan oo kale ugu tukado masaajidada ku yaala magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba dalka isagoo oo salaadaha jimcaha badi kula tukaday qaybo kala gadisan oo kamid ah shacabka Soomaaliland degmooyinka ay ka kooban tahay caasimadda Hargeysa sidoo kale gobolada Saaxil iyo Gabiley ayaa uu kaga qayb galay salaadaha jimcaha waxaana madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo sidoo kale uu goor fiid ah uu dhowr habeen oo kala duwan uu booqday goobo kala gadisan oo kamid ah goobaha laga adeegtay ee ganacsi ee ku yaala daafaha kala gadisan ama degmooyinka magaalada Hargeysa kuwan oo caado rasmi u noqday madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo inuu isagoo oo kali ah uu shacabkiisa uu kula caaweeyo ama uu kula tukado magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba gobolada qaarkood.